barakaatu walaal Safiya soo dhawow. ودوا ولا عبد الساق وافي يعني هو ما شاء الله حالتي Safiya walaal aad baan kaaga mahadcelinaynaa ma sha Allah insha Allah wax filayaa waad la socotay training waad la socotay baan u malaynayaa waad la socotay وان لسه walaal waxaan ku sheekaynaynaa C9 oo ah productigaas loogu talagalay in xagga maaragtay wasanka iyo culayska lagu dhimo waxaan ogahay ama aanba dhageystay video aad kasoo duubtay xitaa inaad adigu aad shakhsiyan isticmaashay si marka bal walaalaha ayna dhegeysanaya trainingka qaatay iyaguna ay usii fahmaan oo waxa weeyaan waa itusoo itaabsi weeyaan mar haddii qofkii isticmaalayba uu joogo kolay qof meel kasoo boobowsaday waa waxa weeyaan in badan wuu kaga fiican yahay marka bal walaal maxaad kala kulantay sidee u isticmaashay maxaa kaaga soo baxay natiijada imisa isticmaalaysa adigoo weliba soo koobaya insha Allah maxaad walaalaha ku kordhin lahayd oo productiga isaga ay si ninka la yiraahdo walaal waxaan ku kordhinaa horta ani waxaan isticmaalay 9 maalin 9 maalin hadaa isticmaalo horta 12 kiilo ayaa isaga riday ma sha Allah 12 kiilo congratulations markaas aniga horta waxaan 3 beri horta wax badar liiraa iyo biyo mooyo wax badar liiraa xagga la iska soo dhigaa marka koowaad go'aana soo qaadataan ku cuni kartaa sineen maana dheedheel lagu cuni karo صح صح go'aan markaas qof aan labada cisho xamilan iyo isku soo lacagta ka khasaareen de labada cisho 3 maalin waa 3 maalin hadaad go'aan qaadi karin iska dhaaf hada carbohydrate ka wareegaysan iska daa waxba kuuma taraayo islu lacagtaada iska dhiga meel marka aniga hortaan ilaa adeesa saacadan maanta caaw 12 ayay ii tahay weli laakiin ani hadda badarka bariis iyo baasta la yiraahdo xaggan iska soo dhigaana iyo wixii sokor iyo saliid iyo cusbo xaggan ka soo tagay maranka waxaan waa qaraariin way macaan waxaan ma aqaan ma jiro waa sax weeyaan waayahay waxuuna haba yaraatee aad istiraahid oo challenge ama side effect wuxuuna jirkaaga ma ka dareentay aad leedahay siinay baa ku sababtay haba yaraatee maasha horta aniga horta waa ku kala fududaaday marka koowaad khafiif iyo fudayd maasha Allah waxaan ka dheefay nashaad xoog badan walaa ma islaan ani waxaan walba caafimaad doonaa laakiin markii ani aan isticmaalay najiito fiican ka helay maasha Allah waa gartay marka maasha ani markii igu koowaad waa labadeedii cc ayaa aniga ka cunay asagoo 145 igu fadhiyo aniga nafsadeyda u dirsadaan maasha Allah si wanaagsan sax weeye maasha Allah barakallahu fiik waa sax weeye wad maqlaysan walaalayaal walaashan Safiya inta soo iibsatay iyada isticmaashay practice gareysay ilaa 12 kiilo wax sahlan ma aha runtii 12 kiilo wazan yar ma aha oo waliba hadda 9 cisho kaliya kaaga dhacay maasha Allah waa sida intaas uun weeyaan inaad fahantid oo adiguna aad si practice gareysid oo adiguna haddaad u baahan tahay aadan ka cabsane aad isticmaashid waayo recommended sida meesha ku qoran dabcan shirkadda markaad buuggeeda akhrido waxay ku leeyihiin iyagu jadwalka 2 cisho inaad wax kala cunin qofkii doonaya 3 cisho waa ka dhigan karaa laakiin waa 1 to 2 anaga markii aan laakiin bookletka waxa ku noqon from 3 to 9 iyo 1 to 2 baa ku qoran kullee bookletka laakiin waa dhici kartaa de qofkii doonaya 3 cisho waa ka dhigan karaa marka hore laakiin bookletkooda waxa ku yaala waa 1 to 2 labada cisho oo horeeya dabadna 3 to 9 buu hadana ka bilaamaya saddex laakiin waa okay qofkaas de adaaba haddaad 3 cisho ka dhigatay waaba sii soomaysay cuntadii jirtay waa dabcan value iyo natiijadiiba si fiicnaanaysa insha Allah anigana sii joojiyana ma rabo ilaa aan 3 xabo soo dhamaystir ma rabo inaan sii joojiyo miisaankayga saa'id ahay aniga aanoo dhulka gelin ma rabo in soo hadlo 18 gaarin way ma 18 hayna gaarin ma 18 ma gaaray ayo walaalayaal marka waxa si malaha maasha Allah aad baad ma tahay walaal shaqaale aad baad ma tahay waayahay walaalaha gacmaha taagaya wax su'aal ma jira xanaan walaal xanaan gabadha la yiraahdaa xanaan haye hadda wax su'aal hayso walaalo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.